عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دبادة هبين عصب إيو والناس وذكرام عاو وحان ربا inaan ka hadla in yar sidii oo lagu caawin lahaa qof oo caawinaad u baahan shalay anoo Facebook fiirinaya waxaan la kulmay video oo laga soo duubay wadanka Ingiriiska inoo hayn jeclahay waxaana laga hadlayay hooyo iyo wiilkeeda oo homeless hooyo Soomaaliyeed oo wadanka Ingiriiska degan oo 2 sano guriga laga soo buriyay 2 sano muddo la eg oo jidka degan iyada iyo wiilkeeda waxay degan yihiin meesha oo bus stop-ka laho dad badan marka waxay dhaheen waxaan isku daynaa cidaan inaan caawino laakiin wayna diideen waxa marka waxay u eg tahay ama dadka badankood waxay soo gabeeyeen inay wiilka iyo hooyadiis dad xanuunsan yihiin oo maskaxda wax ka qaba cudurada maskaxda ay ka tabanayaan oo sidaas darteed dadka ogolaaneen inay wax u qabtaan oo inay rabeen inay dadka ku darsamaan marka dad badan marka waxay isweydiiyeen maxaa loo qaban karaa iyo waa isku daynaa inaan caawino laakiin wayna diideen marka waxay noqotay cidii inaa jidka loo daayo marka because way diideen waa la iska dhaafay marka waxaan rabaa inaan ka hadlo wax yar haddii qof aan naqaan xanuunsan tahay maxaa loo sameyn karaa qofka haddii ay garadkeeda yar yahay ay garan weyso inuu jidka meel la degay ay ahayn oo nafteeda oo halis ku jirto markaa jidka degan tahay maxaa loo qaban karaa ma la qasbi karaa waaye and sometimes qofka haddii again garadkeeda oo yar yahay inaa la qasba dantan uu kalifaysaa so jidka anaga hadda markaa Mareykanka joogna ana wadanka Mareykanka jooga jida jiro oo loo maro qofkaasito أنا wadamada Yurubta waxay inaga duban yihiin laakiin waxaan iska qiyaasaa inay isku wada hal yihiin ama wax yar inay bedel yihiin ee dhici karta laakiin akid jid way qabaan ikan oo loo maro qofka sida lagu caawin lahaa Mareykanka hadda joogtid oo qof aad taqaanid ay jirto oo cudurada maskaxda ka tabanayso oo nafteeda halis ku jirto mar waxaan dhahnaa nafteeda halis ku jirto ama nafteeda khatar gelinaysa qofkaana ama kas ama kami waay ama iyadoo og oo ugu talagashay qofkaas ay nafteeda dhaawac gaarsiin kartaa ama kami waayo oo garadkeeda yar laakiin oo marka iyadoo ogeen maybe in duqda camal hadii ay diidaysa caawinaada maybe dhaxan inay u dhimataa dhici karto meesha ku talagalin inay dhaxan u dhimaysa laakiin way dhici kartaa so waxaa jira qodobka koowaad meesha ka bilaabaysid waxa waaye inaa waxa tagtid maxkamadda waxa buuxinaysaa warqad oo la dhaho PRT form kala dhahay waxa waaye person requiring treatment which means qof oo daawo u baahan waay qofkaanita leedahay so waxa u baahan tahay qofka magaciisa inaad taqaanid iyo da'diisa ama waqtiga dhalatay iyo qofka xagee laga heli karaa marka warqada marka halahaas qortid xagee ku dhashatayna lagu weydiinaa inaad ku qortid waaye kadib hoos waxa lagu weydiiyaa maxaa ku aragtay qofkaanito ee ugu baahan tahay daawo so just the explanation sharax yar qoraysa oo dhahaysid qofkaanita mesela jidka degan tahay 2 sano la mid community-ga waxay isku dayeen inay caawiyaan weydiidayaan waxaan aaminsanahay inay nafteeda ay khatar ku jirto sidaas darteeda waxaan u leeyahay inay qof oo treatment u baahan ama daawo u baahan ay tahay so warqadaas la qaadaa maxkamadda tagaysa maxkamadda markaa tagtid qaaliga hor istaagay qaaliga u sheegaysa se wax u dhaceen bas qaaligu ku soo shaabadeena warqadasha wuxuu soo dhajinaa timber oo dhahayo anoo qaali hebel qofkaasito qof oo isbitaal ay u baahan tahay isbitaal hala geeyo warqada hadda oo ku soo timbereeya qaadanaysa waxa uu tagaysa askarta u dhiibaysa bas askarta wuxuu weydiiyaa qofka si uu eg tahay xagee ka heli karaa waxaasito oo tilmaamaysa waxa aad taqaanida u sheegaysa and then askarta ugu tagaya qofka meesheeda soo wadayaan waxay geenayaan isbitaalka markaas meesha qadwada laga daawada meesha ka bilaabanaysa isbitaalka qof markii la geeyo way baarayaan waxay u suubinayaan daawooyin siinayaan and then loo dhinaca loo kala bixi karaa dad oo waxaa jirto isbitaalka hadday isdhahaan qofkan weeroon tahay way garan kartaa ama hadda way fahmaysaa inay daawo u baahan tahay taas volunteer waaye qofka markaas uma baahna ina xukun maxkamadeed ina lagu daaweeyo dad waxaa jiraan laakiin laga dhaadhici karin inay daawo u baahan yihiin ama inay jiran yihiin dadka qofka haday saas tahay
oo xataa takhtarka markuu la sheekaysto oo dareemo inay qofkaaneta garadkeeda uu aad u yaryahay ee nafteeda halis ku jirto then maxkamadu saaraa waxaa la dhahaa qaaliga markaas wuxuu ku xukumaa inaa la daaweeyo oo wuuba la hadlaa saaba dhahay waa ku xukuman tahay inaa daawadaada qaadatid sida loogu talagalay ama xafiiskaaseeta ama isbitaalkaaseeta sidoo ku dhahay daawada inaa u qaadatid bas meeshayna ku eg tahay soo xukun oo waxaa la siiyaa masalan muddo 3 bilood ah inaa daawadaada qaadatid maybe 6 bilood marmar qofka counselorka ee la shaqeynayaana 3 bil hadday dhamaato maybe inay markaas haddana 3 cusub suubiyaan ama ilaa sanad anaga camal inta America markaa joogno waxaan suubinaa 3 bil kooda la suubinaa 3 bil hadday dhamaato dan waxaan suubinaynaa warqadan buuxinaynaa like qofka counselorka ah buuxinayso oo ay dhahayso wili waxay u baahan tahay qofkaaneta inaa xukunka lagu sii wado waxaan ka cabsanaa haddii oo xukunka qaaliga oo dhaco inay daawada in iska dhaaftay imaan weyse ee daawada iska joojiso daawada hadday iska joojisana dhibaatooyinkaas aan dhici karaan markaas kadib haddana xukunka waa la cusboonaysiiyaa soo sanad laga dhiga dad badan oo waxaa jiraan oo xukun lagu wada leh ma ahane oo iyaga yani haddii oo xukunka laga dhaafo oo maxkamad isu istaagaynin oo daawadooda qaadanaynin so hadday saas tahay then waxay noqonaysaa saas inaa lagu wado qof kasta oo yani magaalada degan community kamid ah PRT-ga buuxi karto oo dhihi karto yani qofka oo u baahan daawada ay qof buuxi karto oo isdhehayso qofkaaneta qof oo waxa waa caawinaad u baahan soo qasab maaha inaa ehel ahaatid inaa qaraabo ahaatid inaa yani ay qof haddaa is aragtid maamadaas camal qofkii aragto oo isdhahdo maamadan khatar ay ku jirtaa nafteeda halis please maxkamada u tag warqadaasi taa inoo waqtiga ka qaadanaysa laakiin ajirkaaga ilaahay agtiisoo jira qof waayeel inaa jidka lagu daayo ma fiicna hadda dadka ingiriiska joogan I'm sure mental health workers inay qabtiin qof hadda anaga jidkeena saas waaye idinka fiiriya jidkiina muxuu yahay maxaa u qaban kartiin I hope inuu wax idin tare I hope inuu like stepskaaneeto inay wax rajo ku siisay inay wax loo qaban karo maamadaasita iyo wiilkeeda waa mahadsantihiin insha allah waa inoo khamiista dambe iyo waa nasbada ikram. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.